جئنا إلى الدنيا كي وبركاته بعد السلام. waxaan ku guda jirnaa tobanka dambe ee ramadaanka. waa toban aad u weyn u fadli badanna leh. waa toban aad u fiican in laga faa'iideystanayo mudan tahay. tobanka waxaa ku jirta habeen oo laylatul qadri ah. laylatul qadrigana waxaa lagu sheegay quraanka laylatul qadri khayrun min alf shahrin. laylatul qadriga wuxuu ka khayr badan yahay kunka biloodna sidoo kale waxaa lagu sheegay 83 sano iyo bilooyin 3 bilood 4 bilood. sidoo kale habeenkan waa habeen aad iyo aad loogu dadaalo cibaadada salaatul leylka qiyaamul leylka. sidoo kale habeenkani waxaa kamid ah habeenada tobanka ramadaan habeenka ugu fadliga badan. culimada waxay isbarbar dhigeen tobanka dambe ee u dambeeyay bisha ramadaan iyo tobanka u horeysa dilxaj. waxay isbarbar dhigeen tobankaas yaa fadli badan. waxay dhaheen yaa fadli badan. waxaa isku soo aruuriyeen gunaanadka hadalkooda wuxuu ahaa culimada waxay dhaheen waxaa fadli badan hadii loo fiiriyo dhanka habeenka waxaa fadli badan tobanka u horeyso bisha tobanka u dambeeyso bisha ramadaan. dhanka maalinta hadii loo fiiriyo waxaa fadli badan tobanka ugu horeyso dilxaj maxaa yeelay waxaa ku jirto yawm al-carafa. xijaajti ayaa waxay taagan yihiin banaanka carafa ayay taagan yihiin. maalintaasi dadka kale way sooman yihiin. sidoo kale maalintaas waxaa lagu dhaafaa sanadkii tagay iyo sanadka soo socdo. ama laylatul qadriga waa habeen laylatul qadriga dhanka habeenka oo ka qeyr badan yahay dhanka kale. sidoo kale habeenkani waxaa soo degtay quraanka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid ku dadaalo si waqtiyada mid ku dadaalo cibaadada oo 10 al-awaakhir ayuu ku dadaali jiray si uusan ugu dadaalin waqtiyada kale. sidoo kale Aisha waxay dhahday hadii aan ogaado inay tahay habeenka laylatul qadriga maxaan dhahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahayay waxaa dhahdaa allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni oo ah ducadaas in lagu duceysto ayaa fadli badan. dumarkii ragii masaajidada ee aadan ayaa fadli badan si loogu faa'iideysto. sidoo kale waxaa fiican i'tikaafka ama salaad qiyaamul leylka quraanka dadkaarta wadaakiriin allah kathiran wadaakiraat. sidoo kale waxaa fiican in habeenka lagu dadaalo in wax badan oo badan quraanka la akhriyo. sidoo kale waxaa wanaagsan sadaqada laba jibaar in laga dhigo. waxaa aad iyo aad muhiim u ah habeenkan inaan ku baraarugsanaano aan ka mashquulin tobanka dambe. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu mid aad iyo aad ugu dadaalo ehelkiisa ayuu kicin jiray. Umar sidoo kale ehelkiisa ayuu kicin jiray. Ali Faadima ayuu kicin jiray oo toosin jiray wuxuu ka toosin jiray hurdada. wiilka ama gabadha ama xaaska ama soojka inay qeyrka wada istaagaan inay wada duceystaan inay maxalla